السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada saaxiibayaal barta aad naga daawanaysaan waa Dhaymaale YouTube-ka, Facebook-ka iyo TikTok-gaba. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir si aad noola jaan qaado. Ummadda Soomaaliyeed nagu xiran sidii aad hore nooga barateen waxaan hadba idiin soo rujinaa mowduucaan isleenahay ummadda muhiim buu u yahay in loo iftiimiyo ama looga qaado shaaca inta shaaca kaga jirta. Maanta waxaan isla arki doonaa mowduuc xasaasiya oon kaga hadli doono jifka kaga imaaday Buurmadow garaadka dhulbahanta. waxa uu boqor Buurmadow dhahay waa wacal ninka garaadka u ah beesha dhulbahante ee Soomaaliyeed. La yaabka ma aha boqorka hadalka uu dhahay inkastoo maaragtay nin ugaas oo reer dhan afkooda ku hadla uusan ku qurxooneyn inuu maaragtay qof Soomaaliyeed ama qof Muslima ku dhaho waa wacalo aabihi ma dhalin oo waxaa dhalay darawalka aabihi. Haddana anagu ujeedkanaga kaas ma aha oo waxa ujeedkanaga uu yahay duulaanka maaragtay qof kasta reehagiis iyo markay qof isqabtaanba durbo wuxuu ka saaraa uu duutiyaa nasabadiisa iyo maaragtay abtirsiimadiisa iyo xalaalnimadiisa. Sheekadan waxay ina xasuusiday sheeko dhacday dhowr iyo 10 sano ka hor markii Saade Cali Warsame iyo reer Hargeysa ay isku qabteen arrimo siyaasadeed. ay fanaanadii Saade Cali ay qaaday laba heesood midna ay u qaaday Laas Caano ay tirlib dhimayso Laas Caano ay tii kaloo ahayd ree odolow kaca ayaa waxaa ku kacay sugayahano badan oo reer Hargeysa ah. waxa ay Saado maaragtay u sameeyeen sugaan fara badan oo caay aflagaada ah. sugaan Saado loo sameeyay waxaa ka mid ahaa sugaan ay tiraday gabar ka mid ah gabdhaha reer Hargeysa. waxa ay ku tiri ilmagaalo inankii bareey inoo afgaranayay inankii maryaha u iibiyey oogada u mayray isagoon iskuul geyn buu aakhiro u kacay haddii uu ifkaba joogi lahaa laguma iibsheyne oo waxaan asluub iyo la barin ereyo diimeede oo waxaan ilaahay aqoon aayadaha qaare oorfana sidii loogu daray way amleedahay. orgi qabada iyo Saade Cali waa isku aqoone labadaba afkooda u wada edebna loo waaye labadaba haddaan aadmi wadin way ambanayaan. waxaa jirta sidoo kale hees ay qaaday ruun xadisaban waatan halka aan u jeedno aan iska ekeysiinayno kala yaabanahay reer Hargeysa qofkii isqabtaanba ma wuxuu ka saaraa nasabada iyo abtirsiimada. ruun xadi heesta ay Saade ku caysay waxa ay ku sheegtay heestaas gudaheeda in Saade Cali Warsame aanu dhalin odayga maaragtay aanu naqaano ee caanka ay ku tahay Cali Warsame. waxay u keentay oday kale ayadana sidii boqorka maaragtay uu garaadka ugu keenay aabo kale. waxa ay ruun xadi heesteeda ku leedahay baadisooca dhaqankiyo hidda soo jireen iyo sooyaalka taxanaha qof saamigiisiyo sumadiisa gaarkay sadar bay ku taalaa waa iga su'aale horta saadiyaa tahay sawraca tilmaantiyo sinji yaad wadaagtaan sal halkaad ku leedahay saakay caddaatee ina samatar caliyey saldhigii xumaantahay ina samatar caliyey ma adaa isixi kara ina samatar caliyey. ruun xadisaban waxa ay tiri Saado waxaa dhalay nin la dhaho Samatar Cali iyadoo weli maaragtay aflagaado badan iyo caay badan u geysatay. annagu ujeedkeena ka ma aha ilaahay u naxariisto Saade Cali Warsame qof kasta muslim ha gafayn ilaahay ka saamaxo. annagu ujeedkeena waxaa waaye maxaa isku ekeysiiyey markii Saado iyo reer Hargeysa ay isqabteen siyaasad isku qabteen inay dhahaan waa wacal oo ma dhalin Cali Warsame ma dhalin oo waxaa dhalay Samatar Cali. haddana isla markii maaragtay haddana garaadka dhulbahante iyo isqabteen reer Hargeysa arrimo siyaasad isku qabteen inuu haddana boqorkii reer Hargeysa uu dhaho ninkaasi waa wacalo aabihi ma dhalin oo waxaa dhalay darawalkii aabihi. intaasaan kaga baxaynaa. Salaamu calaykum warahmatullahi